شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. akhlaaqiyaadku badhna waa dabci bay yidhaahdeen ama sijiye rasmi oo qofku uu leeyahay. waxyaabaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin iktisaab inuu qofku kasbado. maalan wax waloo nolosha ka mid a wax la bartaana waa jiraan, wax loo dhashaana waa jiraan. qofku maalan dulqaadka wuu u dhalan karaa, marka hore dadku wuu kala dul badan yihin, laakiin haddana waa wax la barto oo la baran karo in naftaada aad kontrooli karto oo ilaalin kartid. waan cadhoodo dhiishiyo dherigaba waan jabiyey maaha wax ka soconaya. qofku inuu aqbalo isagoo cadhaysan haddana inuu nafta ilaalin karo. walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xoogga maxaa u taqaanay? waa ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin bay yidhahdeen. waxay dee iyagu u arkayeen fasilkooda wuxuu ahaa ninka xoogga badan leh waa ninka rag markay isgalaan aan dhinaciisa dhulka la dhigin. laysa shadiidu bisurca buu nabigu yidhi. ka xoogga badan leh ma aha ninka marka raggu isgalaan aan dhulka la dhigin kaa maaha, ee waa buu nabigu ku tilmaamay alladii yamlik nafsahu cinda alghadab. yani xadiidka maa macnaa wuxuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ka naftiisa hanan kara markuu cadhoodo. ninka xoog badan leh waa iyadoo naftiisa iyo acsaabtiisa iyo dhammi ay kacsan tahay ninka haddana dejin kara ee kontrooli kara ee waan cadhooday aan wuxuu doona ku samayn karayn. waxaan leenahay markaa waxbaa la iktisaabi karaa, laakiin qofku inuu akhlaaqda noocana iktisaaba waxay u baahan tahay isku day tiro badan leh iyo tijaabo tiro badan leh. qof waliba markuu kelida yahay waxaad tilaadahay malaa cidi kaama dulqaad badna cidi kaama caynkana, laakiin waxaad si ogaanaysaa marka lagu gugujeeyo ama lagaa gardaraado ama markaa xaalkaagu siduu noqdo markaasaad qiyaasi kartaa. haddii aad meel weligaaba layska kaa ixtiraami jiray aad joogto oo un waa hebel la odhan jiro lagu wada ixtiraami jiro weligaa muuqan mayso dulqaadkaagu intuu leegi. laakiin haddaad soo dhex martay un bulsho inuu jiijiidanaysa ama mashkilad markaasaad si ogaanaysaa naftaada inta ay tamarteedu leedahay. akhlaaqda keeda xun iyo keeda fiicanina waxay la mid tahay qofka biniaadamkii sida uu kala deganaanshiyo badan yahay ama dabcigiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray waxay la mid tahay uskaga marada kaaga dhaca. mid waxaa laga yaabaa markiiba markaad maydho inay maraduba caddaan noqoto nadiif, midna waxaa laga yaabaa inaanu 2-3 goor marka la maydho inuu ka bao, mid waxaa laga yaabaa inuu maradaba la gaboobo faryaro beri kaaga dhacday inay marada la gabowdo, laakiin inay sii khafifto una sii khafifto una sii khafifto una sii khafifto. waa saasoo kale bay dhahay nafta biniaadam. haddaad mujaahadatu nafsi samayso oo aad ku daydo nafta inaad kibir jabiso oo aad tawaaduca barto oo aad barto inay islaamnimadeeda tabaqdo oo aad kibirka iyo fakriga iyo isla weynida iyo waxa kaloo dhan ka ilaaliso, waa laga yaabaa naftaadu inaanay aad u adkayn, laakiin si aad ugu wado xaj baad gaadhsiin kartaa ay noqon karto wax loo dul qaadan karo waxa ka soo hadha. waxaan leenahay marka iimaanku astaamihiisa rasmiga ahi waxa weeyaan waa dhaqan. akhlaaq baa astaan rasmiya waa. walidaalika buu masala nabigu wuxuu tilmaamay man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falaa yu'di jaara, man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyasmut, man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayra, man kaana yuumin billahi imisun baa xadiis aragteen caynkaa sheegaya oo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay iyo maalinta qiyaama rumaysan, yani qofka iimaan qalbigiisu degan yahay yuu jaarkiisa dhibi. qofka qalbigiisu iimaanu degan yahay ha karaameeyo dayfkiisa iyo martidiisa iyo cidda u timaada. qofka qalbigiisa iimaanu degan yahay carabkiisa afxumada iyo waxa kan ha ka ilaaliyo. bale waxaa arki kartaan isagoo ilaahay qur-aanka kule maxay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qawmun min qawm casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaa casaa an yakunna khayran minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatub faulaa'ika hum alzaalimuun. aayaadkaasi tirada badan leh suuradatan suurat alxujuraat dhammaanteed ba akhlaaq bay sidaa. waa suura bay yidhahdeen aladab ka warranta, aladab maca allah maca rasuuli maca almu'miniin. ilahay wuxuu inoo tilmaamaya kuwa iimaanka laga helayo badhkiin badhka kale iyo xaqiri. waxaa laga yaabaa kuwana xaqiraysaan ama ku jeesjeesaysaanba inay idinka khayr badan yihin. mujtamac akhlaaqiyaadka mujtamac oo dhammi u baahan yahay waxaa ka mid a inuu dareemo cadaaladda iyo sinaanta iyo midnimadiisa, inaanu mujtamacu noqonin qaarna qaar la kor yeelo sabab kasta ha lagu kor yeelo. waa nin maalqabeen oo inta maal kale halkaa la fadhiisiya waa madax oo meel gaaray fadhiisataa, in gaara uun si gaara loo weyweyneeyo loo buumuuniyo dadka kalena la liido. islaamku waxa weeyaan inaan qofna la xaqirin muslima. waxa uu alla tilmaamaya subxaana wa tacaala warna fihiin ha ceebaynina baa layidhi walaa talmizu anfusakum, warnaanays ha isugu yeedhina baa layidhi. dhaqamada ugu xunxun ee soomaaliyeed ay gaarka ku tay yaanan caalamka intan meel maraya arag dad kula nooca naanaysta ka mid ah. mujtamacaadka kale waxyaabaha ugu badan qofka biniaadamka khaatirkiisa way dhowraan, xataa kuwa gaalada ah. qofku meesha uu liito inta badan magac ugama dhigaan. soomaalida waxa ugu badan qofkaa la eegaya halka aad ugu yara nuqsaanta leedun baaba magacaaga ah. cawarow, langadhow, luglow, feedhow, madaxayow, gacmayow waxaanay sheegayaan. waa lagu eegayaa meesha lays yidhaahdaba qofkan halkaas buu iin ka leeyihi. inta lagu baadho halka iin uun aad ku leedahay baa lagaaga dhigayaaba shakhsiyadaadaba inay halkaasi matasho, dabeetana iyadii baa magac kuu noqonaysa. waa yacni nooc liidnimada ka mid a inaad qof bini aadama intaad baadho halka aad tidhaahdo wuugu liitaa unaad astaantiisa ka dhigtaba lagu garto. ilahayna wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan. warnaanaysahayo waxaana isugu yeedhina baa la leeyahy subxaana wa tacaala. faasiqnimo iimaan dabadeed yacni kanbaa u xun